maayirka degmada Burco Maxamed Yuusuf Abdiraxmaan Muraad oo la hadlay telefishinka caalamiga ee SBC TV waxa uu ka hadlay eedeymo uga yimi siyaasi Khaliif Xinwaal. Maayirka degmada Burco ayaa sheegay inay waxba kama jiraan tahay hadalada uu ku hadlay siyaasi Khaliif Maxamed Warsame Khaliif Xinwaal, waana kan maayirka oo ka hadlaya arrimahaasi. waxaan garduur iyo ka tagin godanka ciideed waa badow caqligu gaaban yahay guurtina isbiday isagoo gunaafi xunxun iyo qeyraan leh oo gorofka caydeed sidee minu gangaamin waxay gabayday habar yoonistaasiisay naaguba waxaan ku xumay dhalinyarada maalin walba Khaliif Xinwaal oranaysa siyaasiga weyn haday siyaasadu tahay xasan gaafaadhi maalmaan gaarigiisa raacay ama Maxamed Kaahin wasiirka arrimaha gudaha is agtaagtaagay haday siyaasadu nooca tahay siyaasi weyn lagu noqonayo ina bulina golakeen gaafa loo sameeyay wasiir Maxamed Kaahin aflagaadeeyay ayuu Maxamed Muraad ka dambeeyay tuhum Khaliifow hadii tuhum la isku qaaday ila wax aad baa fiican media la soo fariistay mageenidii Faarax Cabdulle qaar kamid ah ayaa la idinku eedeynaya ina ka dambeyseen wixii dunida dhaafiyay nasiye iyo degmada aad ka hadlayso iyo cidiba igama sareyso nasiye ma taqaan horta halkay ku taala waxaad ka tahay ma garanaysaa inaad ugu sareyso daayo u malayn maayo inay ku garanayaan adna aad garanayso ama wasiir halgula doona ama yaan lagula dooni maalinta fashilantay baan ku sheegay inaad nin wax taraya aan ahayn maalintii madaxweyne Muuse Biixi oo murashaxa aynu ka xaynay ee rag badan ay nagu heliyeen adna aad waftiga la socotay jaamaca Axmed iyo ina qalab iyo ragina la midkay isku deegaanka aynu ka soo jeednay maalinta markii Muuse Biixi arkay inaad baabuurtaba ka degay oo sidii waftiga aad meel laba war iyo sumcad iyo magac ku lahayn oo aad deegaan qura inta u degtay aad abaabulin maalintaas ay lagu fahmay inaad wax matara tahay sida waxba lagu diran waayna waa sida xisbiga kulmiye oo ayaan dar burcaynu joogna waxa 20 jir mudug jooga ilaahay uma xil qaran waa la ogyahay in xisbiyada mucaaradka u shaqeynayso nin baa gabiyo wuxuu yiri ninka galabta ila joogay ee goday ka sheekay ee labada giniya aan iskiin jeeb isugu geeyay walaal laba gacmood soo anigu kaama guro sheeko labada dhinacba inaad ka wado oo halkana kulmiye xil ka sugayso labada xisbi mucaaradna raga aad la shaqeynayso adigu odayba ka tahay dafiraada aad dafirayso kuwii kula socday inaad been sheegayso way garanayaan nin weyn marka tahayna been inaad media la soo fadhiisataa wallahi waa ku nacasnim waxaana kuugu filan oo ummadda reer Soomaaliland ba ugu filan haddaad labada murashaxee degmada nasiye ka soo jeeda haddaad la shaqeynayso maad maalin qura intaad raacdo ama mikrofon ka hadasho ilaa siyaasi baa inamada yar kugu sheegayaan aad tiraahdo haddaan deegaankan nahay labada nin baan wadan nin kasto siyaasi ama siyaasi sheeganaya maanta wuxuu wataa xildhibaankii u soo bixi lahaa buu wataa sidoo qofku uga fog yahay ilaah aqoonta wuxuu ugu ceebiyay masaajid buu fadhiyay aniga soo saaray $100 buu ku qaadan jiray haddaan beentaba laga xishoonay isagoo ninku waa nin weyn waa nin sadoga media la soo fadhiisay masaajid horta masaajidka waan ku faanaya masaajid haddii aan ka doodo masaajidka maan geli jirin ama maan seexan jirin isagoo kala noqonaya masaajid iida laakiin $100 buu ku qaadan jiray ana soo saar oo anaga xabeema soo saarin urur xasan gaafaadhi furtay oo loo jeeray rays oo loo yahay oo hantidiisii iyo naftiisiiba uu raaciyay ayuu xasan gaafaadhi gacan yara waxa ummaduna waa ogtay ururkaasi markii dambe wuxuu ku biiray markii uu dhacay wuxuu ku biiray xisbiga kulmiye waa taa maanta uu ku fadhiyo wasiir xasan gaafaadhi hadduu wax ka ahaadee meel buu fadhiisan lahaa ururkaas isaguna gacan yara ka ah aan candidate ka ahaadee u sharaxan ururkuna aniga wax ma siinin ana codsiiyay oo gobolkan Togdheer ragii ka soo saaray ayaan kamid ah $100 buu qaadan jiray
warbeenta haddaad ilaahay kala xishoonayn dee insaankiisa waa lagala xishooda masaajidada oo gacanta lagu hayaa iminkan gacanta ku hayaa qaar baan iminka dhisay qaar kalena iminka gacanta ku hayaa dhisi doonaa may weydiisay laakiin caqiida ahaan waxaan ka aaminsanahay dadka oo la tujiyo in lacag lagu qaataa inay bannaan tahay in kale iska daa beenta ilaahay nin weyn buu kaa dhigay iska daa beenta wuxuu yidhi reerka cid iiga sarraysaa ma jirto waa beenta wax allaala waxaad ka tahay ma jirto waxa aanad arki doontaa dadkuna arki doonaa inaad reerka waxba ka ahayn iyo deegaamada aad sheeganayso haddii ilaahayba kuu qoro xilliguu dhiibo maalintaasaanu cidlo kaaga saari doonaa ku tusi doonaa inaad goblan ka tahay oo aad waxba ka ahayn sidaad maantaba koonaha uga joogto ee aad war ugu hayn wuxuu yidhi gobolka waxba kama tihid miyaa haatan lay baranayaa waa horaan baxay haddaan wax ka ahay haddaanan waxba ka ahayn haddaan wax xumeeyey haddaan wax khalday taariikhdeedaasi meel bay martay tii xumayd baa meel martay tii wanaagsaneed baa meel martay adigoo khaliif xinwaala oo ciil qaba ah waxba lagaa weydiin maayo ayaan le cabdullaahi jaamac warbaahinta caalamiga SBC magaalada Burco.